aniga oo ah professor ku dhashay gobolka Baay degmadiisa Baydhabo ee wax ku bartay ku barbaaray ilaa heer jaamacadeed ka gaaray waxaan halkan u soo istaagay waxay ahayd waxa ay qanciyay madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis lafta gareen 4 biloodaan Baydhabo joogay waxyaabihii Baydhabo la iiga sheegayo dhanbeen bay noqdeen xamar baan ku noolaa wax ka jira ma lahayn waxaan ogaaday nolosha maanta Baydhabo ka jirto waxaan soo xasuustay Maxamed Siyaad Barre soo xasuustay ayadoo equalization ah sinaani cadaalad ay ka jirto magaalada qofkii qof dilo la dilayo qofkii qof dulmi la macni wax waa in shay laga qabanayo ee aan classification wax la yiraahdo ay jirin dadka waa equalization ay yihiin taasina waxay ku timid isku duubnaanta shacabka iyo madaxda ee gobolka ay ku timid annagu waxaan masalaynaa koonfur galbeed